بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay tahay bishii January 15keedii ayaa waxa shir jiraa'id isugu yimid odayaasha dhaqanka ee degmada Buuloburte kuwaasoo ka hadli doono waxyaabihii ka dhacay degmada Buuloburte 3 bilood ilaa 4 bilood muddo ah waxaan rabaa marka ugu horeyso in aan salaamo odayaasha dhaqanka ee beesha meesha fadhiya ee degmada Buuloburte ee saxaafadda culimada diinka ee dhalinyarada inta ka soo qayb gashay shirkan jiraa'id ee aan maanta ku qabanay degmada Buuloburte waxaan rabaa inaan ku salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ayadana inaan mataqaanaa nala wadaagaan salaanta aan halkaan ugu dirayo dhalinyarada meesha fadhisay iyo odayaasha dhaqanka mid la mid ah ayagana u gudbinaya waxaan rabaa markii inaan u gudbo dhacdooyin ka dhacay degmada Buuloburte oo ay maanta nagu qasabtay inaan ka qabano shir jiraa'id kana hadalna dhacdooyinkii ka dhacay degmada Buuloburte haddii aan hore u galo waxa muddo dheer oo markii si loo fiiriyo aan yareen oo 3 bilood ilaa 4 bilood ah degmadan ka jiray qalqal siyaasadeed kaasoo ka bilowday wax la yiraahdo golo deegaan oo markii u horeysay ay cilaamiyeen madaxda Hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabe iyo wasiirka arrimaha gudaha Caadle ay ku cilaamiyeen ayagoo muddo hadda laga joogo dhowr bilood meesha noogu yimid oo bulshada Buuloburte ula kulmay beelbeel ula kulmay ayagoo mid waliba dhabarka ka taabtay oo ballan beena la galay qaasaan anaga waxaan inala galeen ballan oo aan u sheegnay in degmada Buuloburte aysan council u baahneen ama golo deegaan nin walba sidoo u yaqaano marka waxa dhacday waxaan ku ballanay in ay ka soo dhisaan hadii ayba dhacayso oo golo deegaan laga dhisi doono ismaamulka Hirshabeelle in ay ka soo bilaabaan degmooyinka xurta oo ay shaqadooda tooska u socoto oo magaalooyinka dalka u furan sida Jowhar Beledweyne Balcad iyo Jallaqsi kadibna ay isugu yimaadaan Buuloburte hadii ay suuragal tahay laga wada hadlo in markaas kadib loo gudbo in golo deegaan laga dhiso tiimaysan dhicin balanteenu saasay ahayd 10 maalmood markii naga sii maqnaayeen ayaa waxa noo yimid qolo dhahaysa waxaan hordhac u nahay golihii deegaanka oo boorsooyin wadato hoteeladii Buuloburte soo degtay waa maxay waxaan golo deegaan la dhisaa markaan ka hadalnay ee aan niri war ballantusaan ma ahayn xilligaana Buuloburte golo deegaan diyaar uma aha mana ka qabsoomi karto waxa dhacay qalalaaso qolo kulli aan isleeyahay dan gaar ah ay leeyihiin oo kooban oo asaas u badneen ayaa waxay sameeyeen qalalaasay sameeyeen waxay sameeyeen isbaarooyin waxay sameeyeen jidgooyooyin waxay sameeyeen in ay wadooyinkii magaalada dhexdeeda faras magaalaha Buuloburte ay dhagxaan dhigaan inay lagu baabur gubaan inay mataqaanaa biro waaweyn dhigaan inay dab holciyaan in ay dad wax magarata ah oo yar ah ay maskaxda ka habaabiyaan abaabulaan ku diraan in degmada ay isku dhacdo inay degmada dhibaato ka dhacdo markaas waxa dhacday in hatta ay airportkii degmada Buuloburte yiraahdaan wax ka soo degi kara male dadkii awalba jidadka ka go'naayeen oo airportkaas soo kaliya wax ugu soo degi jireen ayaa waxa dhacday in isbaara la dhigtay in jidadkii la gooyay in dhibaato ay ka dhacday dhibaatadaas soo gaartay heer dhimasho iyo dhaawac waxa aad iyo aad mataqaanaa isu xumaaday dadweynihii degmada oo isjeclaa oo magacooda oo ahaa reer Buulay oo ganacsatadooda gacmaha is haysteen oo dhalinyaradooda isjeclaayeen oo ardadooda isjeclaayeen oo hooyooyinkooda isjeclaayeen ayaa waxa dhacday dad ka tirsan degmada Buuloburte waliba deegaanka oo waliba aan isleenahay waa dad aan isleenahay hadda dad waaweyna ayaa waxay abaabuliyeen ummadda noocaas oo isjecel inay kala diraan waa laga qaado waaye ugu dambeyntii waxa yimid niman ka socdo Hirshabeelle
oo xafiiska madaxweynaha ee Hirshabeelle ka socda yimid oo wafdi oo la soo diray arinta inay galaanay damceen waxba waa ka qabo waayeen waa iska noqdeen wasiirka arrimaha gudaha yimid oo asiga markii hore waxa huriyay Buuloburte dhibaatada ka dhacday ninka mataqaana abuurkeeda lahaa ayaa yimid asagana waa ugu sii daray markuu yimid waa sii darsatay degmadii waxa dhacday inuu ka dambeeyay madaxweynihii Hirshabeelle inuu ka dambeeyay waare waa yimid 9 maalmood oo joogay iyo 9 habeen waxba waa qabo waay hadduu la shiray beelihi hadduu la shiray waxgaradkii degmada waxba waa qabo waay waxa dhacday asigoo aan waxba qabanin ugu dambeyntii waxaan kamid ahayn odayaashayna dhaqanka ee degmada ee hadda maanta shirka jiraayad qabtay qoladii ugu dambeysay oo la kulmay kamid ahayn waa isaaf garawaynay wax hawa yaraatee degmada dan u ah oo umada dan u ah oo maamulkiisi dan u ah oo mas'uuliyadiisi mataqaana ku wajahan oo aan ku kala tagnay ama uu degmada u qabtay ma jirto asigoo safara oo boorsooyinkiisa xirxiran yihiin ayuu na dalbay inaan la kulanno waa la kulannay waa madaxweynaha Hirshabeelle ma dhihin madaxweyne diyaar baa tahay safar baa tahay nin safar u taagana war ma gala ma dhihin waa xushmaynay waa qaymaynay waa la kulannay la kulan kadib doodaar kadib wuxuu nooga tagay gogol baataal gogoshaas la galo maxay tahay gogosha yaasa garsoor ka yaasa dhiga yaasa loo dhiga marka su'aalaha noocaas weydiinay wuxuu yiri waxa goobjoogka noqona oo garsoorka noqona wasiiro ma garanayno wasiiradaas runtii waa la yaabnay wasiirada asiga waxba qabo waay wasiirada uu sheega waxa kamid ah caadle degmada Buuloburte dhibaatada ka taagan iyo dadkan degmadan u dhashay oo walaalaha ah maanta inay dhibaato dhex timaado ninkii mas'uulka ka ah ilaa haddana dhibaatadii la dhex fadhiyo ayaa kamid ah wasiirada uu sheega Soomaalida waxay tiraahdaa timirtii hore dablowa war caadlatiisi hore u gabay asaa waxba qabo waay maanta inuu haddana gogol dhigo oo degmada Buuloburte gogol u fadhiyo oo in yaro mataqaana haddana gaara ayaga markaas aan u taagan iyo asaga ay sii wadaan hurintii dabkii Buuloburte ka olcay oo damis u baahan waara inuu ugu tago oo yiraahdo kuwaasa gogol dhiga taasna waa wax aad iyo aad ajiib ah wax la yeeli karana ma aha waxaan leenahay oo aan warkeena ku soo koobayna oo aan shirka jiraad ku soo xirayna Hirshabeelle waa ka quusanay wasiirra yimid xildhibaanna yimid xafiiska madaxweynaha qayb ka socota timid madaxweynaha yimid ilaa hadda wax xal ah oo la taabo karo oo degmada loo qabtay ma jirto maadaama ay degmada tahay degmooyinkii qadiimiga ah ee Soomaalida intii jirtay soo jirtay ee aan ahayn degmooyinkii muddooyinkii dambe la aasaasay waxa dhibaato ku ah in ay dhibaatada noocaasa ka dhacdo ayadoo 90kii iyo 91dii iyo xilliyadii dhibaatada badan jirtay ayadoo waxaan ka dhicinaa ka dhacay waxa ka dhacay oo ka dhicinaa waxa kamid ah wax hadda aan soo sheegaynay oo ay kamid tahay in dab la shido in jidadka la gooyo in faras magaalaha umada isugu soo baxday iyadoo dhagaxyeynayso waa wax oo aan wali ka dhicin waxaan leenahay marka Hirshabeelle waa ka quusanay madaxweynaha Kabalaan oo meeshan ka tagay wuxuu ugu tagay male qaybtii oo markuu yimid la kulmay iyo qaybtii u dambeysay dhamaad iyo bilaaw intaba wax natiijo kuma tagin kulli waa la sheegay waa wada sheegeen ayagoo kala mowqif ah ayaa haddana waxay arkeen reer Buuloburte waara inuusan waxdana degmada Buuloburte ugu tagin kuwii ka soo horeeyna aysan waxba qabanin sidaas daraadeed waxaan leenahay maadaama aan ka sabarnay Hirshabeelle oo ay meel bannaan degmada Buuloburte ugu tagtay iskuna dirtay waxaan leenahay soo fargeliso dawladda federaalka baaqan u direynaa waxaan ka codsanaynaa in ay soo farageliyaan dhibaatada ka taagan degmada Buuloburte oo ugu hor leeyahay konsolka sababtoo ah konsolka lagama dhisin Hirshabeelle qaybihiisa kale Buuloburte cirka looga soo riday jid uma soo marin xataa diyaarad laguma keenin waxaad moodaa wax dusha looga soo tuuraad moodaa war caadlo wasiirka arrimaha gudaha kama soo dhisin Balcad kama soo dhisin Jowhar kama soo dhisin gobolka Hiiraan Beledweyne waxaan la yaabanahay aad ula tacajibanahay
wuxuu 2 bilood Buulaburta u dhax fadhiyo konsol u saarsan yahay war konsolka mujawar ka soo dhis oo balcad ka soo dhis oo meelaha jidadku furiin ka soo dhis markaa kadib imow waxa soo dhan taladaas oo dhan waan ugu diiday waxaan leenahay dawladda federaalka ha ka soo arinta Buulaburta ka taagan ha soo farageliso wixii karaankeeda inay wax ka qabato